ندودا سو كهاد ليس موضوع آدي آد مهمة خاصة تدك مسلمين تدك الصومالي دا غربها جوغا وانا مسألة كصابسان قويسكا مسألة دا سو مسألة دا جورك شيوخ ذو مركز جزاهم الله خير موضوع أي ما أنت نوقي حيان موضوع سي نوكر صاريان بالحقوق آبها صارا حقوق جورك كصابسان حقوق أروسك قديسة كصابسان أي الشيوخ جزاهم الله خير نوكر صاريان وحنا نقول بلا بيان ندوده الشيخ الفاضل مصطفى هارون بإذن الله فليتفضل. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد ولا لي القضية دان كصاب سيسان جوركا يدلين يرضى يوالد كدور كوليه أما وحلو قبها هي والد كون قاطه إلهي سبحانه وتعالى والد كوحسي دور الولاية قيبتا إنه وحمامله أو مامله المهيسة waxay shareecadu tilmaamaysaa gabadhu inaanay keligeed guursan karin iyadoo aan weligeedii joogin ama bixinin waxaa runtii mudan in yar la isdul taago baahiyaha qofka bini aadamka ilaahay ku abuuray waa tiro badan yihiin waalidkana waxa saaran baahiyahaasi ilmaha uu dhalay inuu isku dayo inuu buuxiyo dhaqanka Soomaaliga iyo duruuftii uu ku noolaa mala baahida calooleed baa ugu adkayd markii wadanka la joogay sida awgeed bulsho muslima bay iska ahayd aabuhu ama hooyadu may seexan karaynin carruurtii oo gaajaysan si uu guriga raashin u keenana meel walba uu ka dhacay waxa la arkaa halkan markii la yimi baahidaasi in si uun loo xalilay solution loo helay laakiin xalkeedu wuxuu la yimi mushkilaad cusub mushkilaadka uu la yimi waxaa ka mid ah نضوجك مبكر كا بسلانشية دقدقة إنن لبضوبا لا أركوه إنتي لقو قانقاري شري إن كيرين كو قانقاران إنتي أي درامة دقار كو تكو درامي شرين إن كو الرئيسين كو قاران تاوحا الراعظة in la yimi environment isna la isku daray rag iyo dumarka oo meel walba xumuhu yaallo oo wadanada kala dhaqanka la yahay inaad ilaahay caasida waa fududay waa ilbiriqsi waa inaad koolka kor u qaado unba kaa xiga inaad si cibaadaysataa waa adagtay waayo marar badan noloshu qaabkay u dhisantaa kaa hor imanaya sida awgeed wadanada tan zinadu waa wixii la isqasba uun xeerarka dowladda u yaalla ama wixii raalli la iskaga yahay zina maaha saasi daraaddeed socially baa la aqbalay تعلينتا لغو أقبلي سوقا لغو أقبلي دقنكا لغو أقبلي waxaynu markaa la joognaa carruurtii aynu haysanay oo hore u qaan gaadhaysa iyo bulsho fasaxday ma ogolin markaa ama raali kama nihin in ilmaheenni suuqa galo inan iyo inan toona
su-aasha isweydiinta le markaa waa maxay xalku dee waa in la isweydiiya haddaba haddii ilmihii uu dhergay waktigii wakti ka horeeya uu bislaaday suuqiina uu fasax yahay inana aynan ogoleen culturekaasi suuqa ah ee fasaxa ah maxaa xal ah fadhiya guriga iyo in kabti iyo cadaadis la saaraa xal noqon maayo infijaar baa dhacaya waa explosion waa qarxayaan intuu qofku dul qaadan karaa limit bay leedahay baahida tan ha dareemin macquul maaha maanka ma gasho sidaa ogeed waa in xal la helaa xalku waa inuu noqdaa inuu waalidku isa saaro mas-uuliyadda ah inuu qaato oo sharci ahaanna saarayd inantiisa inuu u guuriyo iyo inankiisaba inuu u guuriyo oo mas'alada tan si ay si xalaala ugu gutaan inuu falowgeed sameeyo in lagu qaydo maaha markaa culture aynu naqaanay waa hore oo qaab inanta loogu guurin jiray ama inanka qaab loogu guurin jiray oo aan hadda kuu suurtagal ahayn adiga marka dhaqaalahaaga iyo awooddaada iyo tamartaada la eego walidaalika waxaynu leenahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhallinyarada wuu la hadlo wuxuu uhi yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa falyatazawaj war dhallinyaro nin kastoo awooda inuu guursado ha guursado ninnimo nin kastoo awooda iyo inta yare maharka iyo intan uu ku dhiganayo ninkii intaa yeeli kari waaya ha soomo ayuu nebigu tilmaamay dadka badh baa u yima waxay dhahdeen aanu isu dhufaano ilaahay rasuulkiisiiyo baashan waabayna wareerisee hanaba dhaaftee sidaa xoolaa aanu isu dhufaano wuu diiday nebigu inay isu dhufaanaan atabatul xadiis baa kusoo arooray uu nebigu diidaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii markaa tabatul aan la ogolayn oo suuqgal aan la ogolayn xalku waa labada tanu soon iyo guur waalidku markaa xilka saarin waxa weeyaan inuu guurka kan fudaydiyo oo uu qaato oo u aqbalo baahidan inay tahay baahi ilmihiisa uu dareemayo uu gaadhayna wakti uu gudan karo haddii taa lagu qanco economically si unbaa loo maarayn karaa si unbaa mas-uuliyaadka loo qaadi karaa masalada in sha allahu tacaala kolleyba sheekha ka hadli doona laakiin anigu waxaan tilmaamaya waxa weeyaan waa mas'alo u baahan xilkasnimadeeda in la qaado ama guur jamaaciya ha la sameeyo ama guur dhalmo dib loo dhiganayo ha la sameeyo ama solutionka waa isla gorfayn kartaan idinka idin jirtaa laakiin no way suurtagal maaha wadciga kan inuu qof dhex joogo waa halkii ninkii carbeed ee gabayga tirinaya yidhi intuu gacmaha ka xidhu badda ku tuuray buu yidhi dabeetana wuxuu yihi war waxaan kaaga digayaa inaad qoydo haddaad qof intaadba gacmaha ka xidha badda ku tuurto haddana tidhahda war waa kuu digayaa imikabaha qoyin suurtagal maaha meesha tani waa sagas film life abaa suuqa ka socda life qof waliba indhihiisa uu ku arkayaa suuqa taagan magaalada qabta oo daawada oo ardada tagoo iskuullada iyo koolajyada iyo meelaha taga oo waxba ha dareeminadu waa hoqoyinadii badda la isku ridayay ee waa in la kala doortaa inay qoyaan iyo in loo guuriyo anigu markaa kelmadda waxaan kusoo koobayaa waxaynu u baahanay mas-uuliyaddaasi inaynu dareenno oo qaadno oo way outkeeda innagaa laynaga sugaya solutionkeedu inagu inoo yaallaa yani intaynu iska fadhiisanayna maxaa la samayn wax badan baa la samayn karaa dee yani qof salbiya ha noqonin salbigu waa qof negative ah qof uun waxa xun uun arka oo optimist uun ah aan wanaagaba arki karin yani pessimist miyaa odhan jirtee qof uun aan wanaagga arki karin ee xumaha arka xumaha uun uu u muuqday inaynu noqonin aan noqonno mushkiladdii wayna haysataa imaa inaynu tagno oo meel aan waxyaabahan qofka kicinaya oo linoo qofku dee noloshiisa caadigaa iskaga jiro mararka qaarkood uu iskaba gaajoonayo
waxan baanu ka fakaraynin isbuu calooshiisa u buuxsan lahaa uu ka fakarayo inaynu tagno ima in meeshan la joogayo laakiin dee wixii solution loo helayo laakiin waan iska fadhinaynaa una ilaahay baan baryaa inta badhna suuqa galayaan wixii soo hadha kolbaa tidhaahdo labaa iga tegey 3 baa tegey aad tiraduna haysato kolbaa inta kugu soo hadhaa inta kale waa iska tegaysaa un wixii alla uu hagaajinayo subxaana wa tacaala isaga u taallaa marka dad adgu tirada haysatuna oo aad tidhahdo waa sugaynaa un yaynaan sugina waynu aragnaa already way bilaabantay waa waxaynu aragno therefore maha inaynu sugno ilaa iyo keena ugu dambeeya la waayiyo ee waa inaynu communitygani uu fakara uu solution keenaa solutionkuna uu fududiyey halkan aad joogtaan hablaha iyo inamada waa la isku dari karaa waana fudud yahay waana laysu guurin karaa guur xalaala reerna waa laga dhigi karaa intaasaan kaga baxayaan